السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا برنامج كإنجلش شو أو طبعا هبين بحيسة جارة وأنا مركز سقوط تلقى داودياشة طلعوا عاوم حيتبيان إن عاود طبعا برنامج كإنجلش شو كبدليه برنامج دي أديكو براتين أدنو براتين تيفيك آرتي أني برنامج كإنجلش شو طبعا أدكو براتين إن بدن أي داودياش لكن عاو فنان ما نجيب بدشيد عاو ما نجيب بدشيد سؤالها ما نجيب بدشيد وحن ما نجيب بدشيد لكن وحن على استيعاب طبعا إن كبدل برنامج إن واتهاي إن تلفوننا يا سؤال بدعي أو إنت أنا برنامج بلعبين با لكن وحن شعلها هاي بلعوا برنامج يا إنه جو مرتيا محن هلكن كسب بندقيتنا محن إدين هينا برنامج عاوها يجو مرتيا دل فنان دل أبوان دل waxaan ku yiri Hibaaq Yuusuf Aadan Allaale dabcan waa abnaan Soomaaliyeed bal iyada inoo sharxi doonto horta Hibaaqay walaal waxaan ku faraxsanahay inaad safar dheer noo soo gashay wadan fog nooga timi ilaa Australia inta soo diyaarday isa soo jiraad soo raacday waxa halkan marti noog tahay aad baan iglanay ku salaamay aad waxaan ku faraxsanahay inaan caawis hor fadhino oo ka hadli doono waxyaalo aad u badan marka wax badan baan TV-ga ka fiirsaday caawi ani adiga is hayna واتهاي هباقي كلي يوسف آدم الله أيها كدلي وحن شلالها عاو وحين صوب بندقي نضبع عن وحيابيرو وكدوين هاي برنامج كسيدي هورين وكدوين عاو إن بدن بيداود ياش برنامج كانت عاو أديك خوف ريو أدوجه الرئيس بعاو هبين من العاو أيضا بدن يلهذا إجلنا نجبدل مركب وحن شلالها هاي بل التاريخ هذا أو كوبان إن هذا إير نضل مرتب أنا هباق يوسف آدم بالي رهدا وحن هذا كإيمت أستراليا مدو هذا دو أفر ويكهر ودن كينيا سو جاري وحن كردقنا أستراليا ونيوزيلند مدة جارس أفر لا تنسنو أنه آدو يرمان وحن كتيجي سوماليا مركو قحي يردفكي ودن كينو كدعي مركا ده هالكاسن كبر بارون كوري إنكستو هو يدي عن مركز تلسون نقولي aan Soomaalida meesha joogtay iyo dalkeena baan ku soo noqonayay marka aad ugu faraxsanahay wallahi in العاون نيروبي نرجعت طبعا عاد برنامج كإنجلش شو يتيفيق آرتين عاد طبعا مرتين وقتها واتهاي أو كل برنامج كا دوية هيو داودياشة كحران إن آرتي إن يو برنامج كإنجلش شو وحن هالكن وقصة واحدة جينا وحيابا صبريس ورجع يدمر كبقيبة كميدو أو مركب برودكت عصب أو أنا هالكن شعل الله يمرد وينا نصوف صحة إن بل سوحن شعل لها بل هسه أب سمية روايده أب سمية بل هسه وجوه الرئيس مركز إلا دل أبوان حطات هاي حاول كرمينه واسي وناس أنت تدعى به ودوان كريم أرتب وحن سلام يا أرتي إن وان سلام يا أديك وان سلام يا دتك نروح لدمان تدوا سلام يا فاميلي جي ولا عليه هو يدي يو حسب كيجي عروتي دمان وان سلام يا وحن كلون آد وتشعلها أوربا آد إن فرصة نقف إيديستو وبري ملكستي جوجتي إن سلامو إن ملكستي كوكل نوشة iyo wadanka hadii joogan dibadda inkastoo de anigu aan waxba aad uga sii xasuusin waa tahay taariikhda qonayna iyo waa bari iyo waxaan jecelahay laakiin bal heesta ay qaado in fanaanada Maryan Mursal Ciise Bootaan Soomaali u dida ceeb oo dabcan oo aab sameeyay baan jecelahay bal inaan inoo gud afree waxaan jecelahay maslax iyo farsamada inaan dhaxdo nala daawada dhulkeena dabeecadiisa micnaadaad ku dhexqado labada wabi ee dureera dalagaci daw wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeye siduu geelu hawdu daaqo laguna u diignahiyayso dayarteena eegto siday dib
la yaabtay wey dadiyo u dadaala nabad nabad Soomaali u diidacay naftina u diidacay Soomaali u diidacay naftina u diidacay ay ay badwaynta dhaneeku dayran kalluunka dabaalanaya dubaxadu siday u taalo siday macdantu dangiigto siduu arigu dareero uga dhaysta wanaysa dunidu waynagu la yaabtay dadiyo u dadaala nabad nabad Soomaali u diidacay naftina u diidacay 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 waa tahay dabcan aan halkaa kaga soo noqono waxaan kaa dhexgalay de heestan Maryan Mursal oo inagaasoo de indhaha ku kala qaadnay waxaan ku yiri Soomaali u diidaceen marka waxaad ii waday taariikhdii aabbo aan jeclay markaas صح aabahay fankii sugan taariikh badan buu ku leeyahay mana soo koobi karo hadda iraahdo waa wada garanayaan been baan sheeglay intii tabartay ah wax badan aabahay ku xasuusta iglanay waxa kamid ah riwaayadaha waan jeclo waxaan jeclaa af Soomaaliga inaan mar kasta inuu sii fiicnaado oo intaan aqaan marka riwaayadaha aad baan u xiiseeyaa waxaan jeclahay aabahay riwaayadiisa kamid ah Gar Cadaawiye Caashiq riwaayadii ahayd cilmi iyo caado iyo kuwa kale aad u badan marka heesiisana markaan dhageysto waxyaalo badan naftirkooda isweydiiyaa ay raada talow haduu noolaan lahaa maxuu ka waday oo waan isku dayaa in aniga fikiraad gareeyo inkastoo adeerkay iyo hooyaday aan weydiyo kula noqdo iraahdo muxuu aabe heesta ula jeeday aabe heesihiisa waxay u badnaayeen wacyigelin wadani ha marka anigana de waxaan isleeyahay wadaniyad ka dhigo halkii aabaha marka waxa kamid ahaa kulli heesta Xasan Aadan Qaade ee ah doqonay dabkaabe doqonay dabkaabe baa kamid ah waxa kamid ah wadankeena hoodanka waxa kamid ah heesay qaada binti Umar Gacal way badan yihiin waxa kamid ah hees la yiraahdo aad u jecelahay oo laakiin dad badan si qaldan ay u qaataan ay Soomaalida dhexdooda ay isku durduraan laakiin aabahay saa u lamu jeedin dhinac wanaagsan waa heesta dulmidoon oo dulmidiid ha isku noqon dulmidoon oo dulmidiid baan aragnay marka
dad badan markaan arkay u isticmaala in yar waan ma jeclaysto laakiin de marka heestaas yaa qaaday markaas heesta waxaa inkastoo dad badan ay gadaal ay ka qaadeen hanuuniye saada cali inay qaadeen aan jecelahay markii hore marka way badan tahay taariikhda aabahay ilaahay u naxariisteeda kale wuxuu leeyahay aabahay gabayaasha Soomaalida ugu dheer gabayaasha aabaha midna ma ka xasuusataa wallaahi de inaan si xun iyo si qalad u yiraahdaan ayaan ka baqayaa laakiin way badan yihiin mid waxaa jira aad u dheer oo gabayaasha Soomaalida ugu dheer waxaa la yiraahdaa dayacan adigoo dayacan marka way dheer tahay marka erayadii ma ka xasuusataa may wallahi billahi way dheer tahay waa gabay aad u dheer marka markii aan akhrinayo kale way ku soo dhacdaa laakiin hadda ma raba inaan si qaldan u iraahdo Soomaaligu badan yahay haddaan si u iraahdo si kale u noqdaa ka baqaaya marka hadiiba aad tahay dee dhal abwaan dhalay adigu aabaha maxaad ka raacdo loo odhan karaa marka dhanka la eego murtida iyo wallahi aabahay anigu waxaan ku xasuustaa aan isleeyahay in yar waad uga dhowdahay aabahay dadka Soomaalida aad buu jeclaa meel kasta ku dhaqan tahay wuxuu isku dayi jiray inuu mar kasta ka waradiga wax zero baan ka ahay laba xabo iskama toosin xaraan bay ka tahay wax iga siiya ma garanayo waxaad ka warantaa dhinaca codka ka warreysa codla ma jira kii waaba ka sii daran yahayba marka dhageysigu baa ku fiicanaha inaad dhageysto luuqayn iyo eraah iyo waxa ma jirto ma jiraan familiga marka caruurtii aabba uu ka tegay ilaa uu naxariiste cid ka raacday murtidii iyo markaas gabayadii iyo wallahi hal gabar baan isleeyahay oo xogaa markay fariisato waxyaalo badan bay isku aadisaa marka Sahriis baa la yiraahdaa halkan oo ka salaamaya marka iyadan baan isleeyahay xogaa way hal abuur weeyaan marka inteena kala goor inuu soo dixi doonto ma aqaane hadda waxba ma jiraan waa tahay dabcan aad baa mahadsan tahay anaguna waxaan ku leenahay de kulley markale aan kugu soo dhaweynaya barnaamijka English Show iyo dabcan TV-ga RTN iyo Nairobi oo safar dheer noo soo gashay caawa halkan waxaan jecel lahay inaan dabcan ku soo bandhigno product cusub oo aad samaysay oo dumarka marka productigan caawa barnaamijku wuxuu barnaamijyadii hore uga xiiso badan yahay dabcan waa productigan marka caawa waxaan jecelahay barnaamijka English Show daawadayaashu in badan bay yiraahdeen fanaan kaliya aad noo keentaan wax kale inkastoo uu barnaamijku ballaaran yahay oo waxyaabo fara badan oo de magaca show hadaad maqasho waxyaabo badan isku tagay adigu wasaa aad Australia uga soo safrisay aad tiri meelaan halkan aan kuma aaminayo sax ayaa ka sala waxaan isiraad England agteeda u kufur halkaas uu ku soconaya waxaan islahaa England iyada qurux badan dadka wax qurux badan hala sheer garayso marka waxaan iraahday halka un bay ka shidan tahay marka waxaan leedahay kani waxaan ku yiri ku socodsiinaya waxaan bamaleeyahay kani waa bakii idiri lahaaba diyaaradu ku saaray baalad ku yeelaya waxaan jecelahay productigan u soo noqono bal productigan aan rabaa xilligaad bilowday iyo xilligii aad aasaastay productigan England ay horta hadda sanad iyo 4 bilood buu available yahay oo wadanka Western ku ka ahaa laakiin 3 sano ka horeysayna waxaan ku jirnay howlgalkiisa iyo tayadiisa sidaan ku soo saari lahayn iyo wuxuu qaban lahaa marka alxamdulillah anako aad tacab iyo waqti badan aan u gelinay waxaan aad ugu faraxsanahay wixii aan rabnay iyo waxaan haminaynay inaan kamera dhalanay aad baan ugu faraxsanahay marka alaabtani way badan tahay waxyaalo kala badan oo different waa loo isticmaalaa marka hadii aan galno qaato wadanada aad intaynaan gelin bal waxaad ka samaysay waxaas wadanada aad ka hadda uga hirgeliseen maxaa kamid ah waxaa kamid ah Australia America Europe iyo New Zealand unfortunately wadamadan Africa istaqfar carabtan way ku jirtaa oo Kuwait ba hadda ka horna soo codsatay anay walaashay u tagnay company aniga gabariga yar walaashay ayaa create gareynay anaka iskale dadka normally markay magaca arkaan waxay isiraahdaan okay dad gaala inay leeyihiin ama gaala waxaan naqaana dadka cadaanka iyo dadka Chinese ma laha anaka iskale aniga walaashay iskale marka wadamada carabta uu ka hirgalay Yurubtaasi America iyo Australia iyo New Zealand marka waxaan dhibsaday oo wallahi aan hadda waqti dheer soo qaato iraahday may dadkii Afrika joogay aad bay markasta way soo codsanayeen hibaaqay xaq ma aha dadkii kala helaya anaka ma helayno maadaama dadka online ay wax kasta ka dalbanayaan Afrika marka in yar oo dib bay ugu noqotay de dadka meeshan ka soo jeedana waa Afrika marka maxaan israahday wixii bal tacab wixii dibku aad ka helaysidba bal aduu I have to try my best night ahday inaan wadankii tago oo Africa de Nairobi oo kaliya tamaahane waa sax way weynte waka Nigeria u socdaa Djibouti ma socdaa Soomaaliya Hargeysa ma socdaa Muqdisho ma socdaa
marka socodkay wuu badan yahay si aan productigaad markaa rabtaa inaad geysid insha Allah soon meelahaas oo dhan available way ka noqon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo okay marka company-gan horta bal magaciisa company-ga Chivoli la yiraahdaa waa magac Soomaaliya ma aha laakiin maadaama aan magaca waa kan Soomaha kaas ku qoran Chivoli la yiraahdaa magaca waxaan u dooranay waxa weeyaan iglanay wadamadan aan deganahay wadan muslima ma aha wadan madow ma aha Australia waad ka garan kartaa wadan cadaan marka anaqiyo muslim ah haddana dad madow ah way nagu adkaatay inaan magac Soomaali inaan meesha degno maadaama ay productna Soomaali bas loogu talagelin sidaan kambaniyasha kale ula compete garayno waa inaan wax macquul ah oo dadka aad keentaan okay aan isla garanay magaca haya dabcan khadadka telefonkana mar dhow waan furi doonaayo daawadayaasha ku xidhan iyo caawa nasiibka u yeelan doona inay ka qayb qaataan marka waxaan jecelahay bal muxuu qabtaa maxay tahay imka productan imisa nooc buu ka kooban yahay okay way badan yihiin waxyaalo badanna waa loo isticmaalaa tusi kartaa aad baan hadda kan oo kale waa set kuwan aan iskor saaray waa set weeyaan setka wuxuu u fiican yahay dad badan baa aad wadamadan dagaalada kareemada lagu iibiyo waxa loo design gareeyay dad cadaana dadka cadaanka iyo anaka isku skin malihin wax la yiraahdo anaka ugu badan cadaankan uu ku yar yahay marka kareemadooda 3% ayaa na caawinaya boqolkiiba 80 wax noo tari lahaayeen because anaka looma design gareyn anaka loogu talagelin marka kuweena waxa weeyaan kuwa anaka loogu talagalay laakiin cadaankii aan loogu talagelin oo inaga afrikaankaaba u samaysayba afrikaanka iyo carabta macnaha cadaan shaqaba kuma lahayo shaqo kuma leh sidoo ayaga kooda 3% oo caawinayo waa ayakana keena 3% oo caawinayo oo wax badan oo caawinayeen maadaama aan isku skin aanan hayn marka way kala badan yihiin wax qabashadooda aad iyo aad iglanay waxaan ku xiran oo dumar baan ku xiranahay waxaan jecelahay dumarka community-ga markasta ku dhex jiro oo adu waxyaalo badan aan kala shaqeyn jiray oo haddana kala shaqeeya markasta cabasho waxaan arki jiray ay yiraahdaan hibaaqay wajigi baa naga halaaway skin damage aan ugu dhacay pigmentation wax la yiraahdo sun damage waxaasoo dhan marka qaarkood waxay door bideen inay chemical isticmaalaan say qof kasta wajigiisa uu jecel yahay inuu qurux badnaado uu jecel yahay laakiin qaar ayagoo barnaamij inay chemicals ay isticmaalaan bayna choice bay waayaan danta bidda inay ka isticmaalaan marka waan fikro waxaan iraahdo okay maadaama anigana de waxaan aan jecelahay waxaan hibaaqay waxaan sheekadan waxbaabad ka qaban kartaa adigu science dhaqaatiir baan ula tagay oo iraahday okay waxyaalahaas aan rabnaa inaan sameeyno aan rabaa inaan marka waxaan rabaa maxaa tiri waa sid waxaan rabaa balkaa inaad soo qabatid gaaban okay haddaan kan ka bilowno kan waa sunscreen macnaha waa maalintii qoraxda ka ilaalin lahaa inta damage wax kugu dhici lahayd weeyaan kan waa maalintii kaas waa maalintii marka kan waa maalintii macnaha waka maalintii lagu talagalay dumar badan waxay jira foundation haday baxayaan marsada foundation okay habeenkiina waa kana habeenkii كنا وهابينكي واد ku yara seexanaysaa wax kala aad marsanaysaa ma jirto kaliya baad marsanaysaa kaligiisa wajigaad meeranaysaa kan waa face washki inta waxa isticmaalka kan baad isticmaalaysaa kana soo qabo markaad wajiga ka ku isticmaashadood ku meeltid ayaad habeenkii aad marsanaysaa habeenkii markaad marsatid kan indhaha hoostooda waa muhiim wajiga intan oo kaliya ma aha indhahana way ku jirtaa marka indhaha hoostooda indhaha hoostooda markaa ku yaala haday daalan madow iyo god baa gala balsoo qabo way kana yaab leh kana waxa way indhaha kaliya ka shaqaysiyaa kaliyaata ayuu nafaqeeyaa uu nafaqo ku abuuraa marka kaani waa ka kan waa indhaha kaliya marka waa sidkii waxa way kii habeenkii kii maalintii iyo kii lagu meedhiyo iyo kan marka sidkaas waa xiran yahay okay marka iminka inta diyaarka inoo ah waa sidkaas may kuwa kala jira oo aan guda gali doonaa soo qabo balkoon waxa jira kan waxa weeyaan age repair serum la yiraahdaa waxa uu taraa dadka wajiga horta hore anagu waxyaalo badan ceeb baan u dhaqaalay iglanay Soomaalida haduu wuxuu qofka uu wajiga jacdad ama duuduub yar uu ka galo wuxuu u haystaa bas khalaas inuu sida ku tagayo ma aha qoraxda duuduub way keenta da kaliya tama keento qoraxda nafaqad la ida waxaayo dhan way waa rood carreer buu duuduubay marka kan waxaas uu calaa dulka wadaynaya waxaas buu istaajinaya
wuxuu samaynayaa meeshii duuduumatuu toosinaya waxaan aad ugu faraxsanahay aan ku daree alaabtan ma aha alaabad natiijadeeda wax badan aad sugaysid hadda kan oo kale dadka normally in badan kulay ugu xiran way daawan doontaa TV-ga wayna arki doonaan hal side baan dadka u marinaa si u arkaan 2 minuut oo la gaarinba qofkii wuxuu arkayaa wajigiisa iyo sidiisa ku noqonaya marka waan deyn waxaan ahay wajiga macnaha wuxuu ku noqonayaa caruurnimadii berigii wow haye marka ma sha Allah marka arlaaba quusatay hay marka ka dadku kaawaday jacdadka marka hadda wuxuu ku kaawaday macnaha waxaan ku kaawaday waa iyaga anigu waxay ugu maamarsada wax kale Allah ka Allah waxa jirta dad hablaha habla wajiga casaado casan guduud iyo waxyaabo noocaas la yiraahdaa teeda labada haaraya xaga galgalaan marka kuwaas muxuu ka caawinayaa kuwaas uu caawinayaa horta haaraha iyo guduudka waxa keena casaanka gudaha wajiga dadka nafaqa la'aan sideedaba qofkii halkan wajiga korkiisa u jeedo casaanay laakiin gudihii baa ka daran waxa gudihii baa shidan markaas gudihii uu shinaan dartiis baa wajigii ayaa sawirka laga arkayaa marka nafaqa uu yeelay wajiga uu dejinayaa nafaqa uu yeelaya kulaylkiisa u dago ilaan kulaylka waxa keenaya waa dhibe karka maxaa ka keenaa leeyahay kulaylka casaanka waxa keena waa kulayl gudaha ah marka gudihii hadii la nafaqeeyo oo la dejiyo kulayl ma jiro okay marka ciladiis isagu ciladu korku ka marka ka nafaqeynaya iyo gudahiiba wax kale loo baahan yahay ma jirto waa jamjam meeshaada joog wow ka waan isla garanay maxaa kale waxaa jira mid kale oo anigu aad u jecelahay oo aad u isticmaalo overnight la yiraahdaa kan habeenkii asna lagu seexdaa iglanay de dumar iyo rag ayaamaha waxa la jecel inay is wada caateen oo la caatoobo dad badan marka waxay arkaa calaacalo leh ina caatoobo waan jecelahay waan is caateen kara laakiin isma caateenayo oo waayo ilaan hilibku waa xanuun way dhib weeyaan wajigaygi baa isoo dhacayo wajigii baa ka yaraanayo oo duq ka noqonaya waxa iri marka okay kan baan ayaan u fikirnay isdoob inta doontid iska dhig wuu ku caylinaya wajigu ku caylinaya baby bacbacuu kaaga dhigaya inta rabtid caatada doontid iska dhig wuu ku kala kicinaya asaguna macnaha kan wuxuu ka dhigayaa big power tibriyahan soo baxday baby face baan noqonaysaa oo bacbaca marka kana waa noocan dadka wajiga marka dhuudhuuban dadka wajiga markay caatoobaan ka dhuubto isku dhaxdhaco wajigii buu toosinaya uu hilib u yeelaya marka kaana waa ka marka kana wajigii buu soo buuraya kanina waa kana wixii buu kala safaynaya marka inta saa iminka diyaar nooca iyo kan kaasina muxuu yahay kana waa face mask face mask de waxaan u naqaanaa anaka ayaamaha walibana qasl iyo huruud waarun qasl iyo huruud wallahi dhaqankeena Soomaalida aad baan u jecelnahay waarna aad baan u marsanaay aad laakiin wuxuu ku keenayo wuxuu ku taray wuxuu dhibku ku keenaya ka badan hay muxuu keenaa wajigaaga wax kasta oo qalajinaya ma fiicna wax alla wuxuu doona ha noqdo wax kasta wajigaaga qalajinaya asaga duuduub keena asaga casaan keena kus nafaqada gudaha kugu jirta buu ka dhooqaya marka waa kan ku engejinaya adigu waa dareemi kartaa yes wuu ku dhalaalinaya shine wuu ka dhigaya laakiin de jirki buu dilaya marka kan waa face mask oo waxa la sameeynaya waa deeqo wajiga aad marinaysaa wajiga markaad marisid 15 to 20 minutes baad ku daynaysaa bahalkan yar oo malqacadan oo kale wataa tissue baad saad ugu dhaweyn waa kan waa madow yahay waxa madow baa kana ka qaadaya markuu taabanaysan u dhaweynaysaa un haye markuu ka qaado waxa ku soo haray vitaminka ayaad ku masaakiray kana baa saas ku oranaysaa markaad nafaqaysid kadib kana kala qacararaya wixii madow baa ka waxa madow kana ka qaadaya ma baa u baahan iska meedhi xataa waad ku seexanaysaa waaw aroortii waad kaga qaaday maya kan markaad waxa madow ku qaadid wuxuu ku reebaya vitamin saliid oo kale wajiga kugu reebaya markuu kugu reebo waad ku masaajiraysaa waad ku seexanaysaa marka kana masaajinaya musaacadi gacanta kan waad ku qaadaysaa markaad ku qaadid wuxuu kaaga tago ayaad ku masaajiraynaysaa wajigii okay marka wiiga aad marsato waa la iska weydiinaya sideedaba wiiga dambe hadda waa inaan isticmaalo wiiga dambe si loo yiraahdo lay daba carro yiraahdo soo baxay hibaaq baa ku timid baa lagu leeyahay waa tahay waxaan jecelahay balkhadadka telefoonada inaan furo oo daawadayaasha dabcan ku xidhan ee barnaamijka England Show iyo macnaha inay su'aalo ku weydiiyaan bal laga yaabo hablo badan waxaa jira wajiga ka yara xumaaday marka waxaan jecelahay bal qaybaha telefoonka inaan noo furo qofkan ugu horeeyaan jecelahay hello assalaamu calaykum hello qaasi fiican baan ku maqlay walaal ka joogtay magacaaga fiican baa inta laga heli karaan kareemankaaga kareemka intee laga heli karaa
waxaa laga heli karaa number iyo address aan siin doono suun insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo halka waad ka heli doontaan kulley. Okay, abayo waxaad ka helaysaa walaalo waxaan soo qori doonaa meesha laga helayo iyo addresska laakiin hadda TV-ga RTN waad nala soo xiriiri kartaan annagaad naga heli kartaan RTN. dabcan daawadayaasha meeshay ka helayaan iyo addresska waan insha Allah waan u qori doonaa iyo meesha ay ka helayaan balse waxaan jecel lahay inaan daawadayaasha khadadka telefoonka soo beegsanaya meel walba jooga inaan telefoonka iyagana aynu ballo wadaagno marka dad baa waxay soo qorayaan oo leeyihiin inantu ma dhakhtarad baa sidee waxa soo u samaysay macnaha wajigeeda ma sha Allah may anu dhakhtarad baahi أنا باكراكي وإلي شهر عرورة معلمات بانها مركا وحا إيجي وشعيل شقادة يدي لما يدو حنو قلت تجي شعيل أقبو دتك وتشيدو ده وكا قرحين تدمر كور دنبا مركا دكتورد مهي لكن دكاتير آد بدن بالا شقية ساينتس إيو أدو أدفايسر بدن وكلا ددوين مركا أنا وان أشيغا أيكي شقادة بيقبتان أنا ولا شي بانها وانس لها هذا النا وكشي كيسنا wixii go'aan oo la tagna waxaan raahna saasaan rabnaa maxaan ka bedeli karnaa waxayna ku leeyihiin okay waqtina si wixii baa la ismaynayaa ayuku la way isla shaqeeyaan naftirkooda wixii baa lagu soo noqdaan wixii baan try gareynaa oo adu dad badan horta alaabtan waxaan aad ugu faraxsanahay in xayawaan lagu tijaabinin oo xayawaanad waxba loogu horta materialka aad ka samaysay maxay sidiisaba aad ugu dartay maxay yihiin wallahi kulli horta waa wada wax alcohol kuma jiro wax dadka skinkooda wax u taramo waa geedo weeyaan geedo u badan yihiin iyo wax natural ah marka qofkan jeclaan lahaa inaan si hello assalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhaw halkaad naga soo garaacaysid magaca okay magaca waxaa la yiraahdaa Muna haye Muna soo dhaw xageed joogtaa okay shukran waxaan ku noolahay magaalada Nairobi okay gadaal baan ka soo gaaray hadda leen maqlay so productiga is from where in which kind of product is that and selo isticmaalaan karan rabi and selo heli karaa dabcan waad maqlaysaa waxa macallimadii productiga fadhida caawa ee qurxinta dumarka marka iyada ku sharaxi doonto dabcan سوى هالي دونت نيروبي وحان آد ugu faraxsan inay reer Nairobi ay bahashan iseen caadihan u heli doonaan oo aad ugu soo tala galay waxay u isticmaalayaan xabiibti waa wajigaaga iyo waxa doonaysa dadku waa kala different weeyaan qof damage buu qabaa qof wajiga inuu cayiliyo qofna wajiga toosiyo rabaa marka gabadho iyadu dhinacay qofna waji adag wajigaaga qof wajigu kareemkan qaar wajigu uu buurnaysiinaya uu naaxinaya qaar uu qurxinaya damage buu ka meeraya inuu qurxiyo baan rabaa bas buurni marab waad helaysaa kada waka gabdhaha qurxinaya diyaar iyo nuswaakan marka waad helaysaa addresskiga waxaana insha Allah waan ku soo qori doonaa page-ka England Show baan ku soo qori doonaa iyo TV-ga RTN halkaas aad nagala socon doontaan insha Allah productiga iyo meesha laga heliyay waxa soo dhan adiga RTN ku xidhnow si aad u heshid iyo England Show okay way shukran dabcan daawadayaashu waxay aad u danaynayaan inay helaan bal meesha laga helayo iyo hello assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا شقالة عند دوامك السلامة si fiican baan walaalo kaaga qaadnay ku maqlayna magacaaga walaalo معان بدنا إجلاني ومنطقة كسرت مدينة نيروبي أدي أحد بعيني السلامة horta in haasanta walaashay dhaqaaliga meesha aan ka baahnayn ayay naga macaawan aad ugu farxayna waxaan jeclahay midka wajiga cayirinayo bes waad helaysaa macaan badanay waxa addresska iyo meesha laga helayo waxaasoo dhan waxaad ku xidhnaataa TV-ga RTN iyo page-ka England Show isla ayna halka kala soco insha Allah insha Allah habiibti insha Allah aad baan isugayna midka wajiga cayirinayo midka kale qurxinayo ayaan rabaa waxaba waa diyaar xataa waxaan ku qaar nooc kala waa lagu daba cararaya macaanay dabcan reer Nairobi way shidan yihiin wallahi aad aan ugu faraxsanahay inay ay rabaan inay ka ogaadaan inay rabaan productiga aad ugu soo dhaweynaya maye telefoonada waa isjeerayaan oo anaaba isleeyahay bal waraysiga ha ka kalen qofkan aan jecelayn chance hello assalaamu calaykum hello
dabcan daawadayaasha waxaan jecelahay si aynu isu fahanno marka aad telefoonka soo beegsanaysaan inaad niyaro dhegeysta caawa programka oo ka xiisa badan yahay kii hore England Show waa program aan ugu talagalay qurxinta dumarka iyo alaab intaasoo diyaarad soo raacday iyo alaab hawada soo martay iyo nooc walba iyo xataa hablihii guursan waayay tan hadday guursan horey u dhaqaaqayaan assalaamu calaykum daawadayaasha aad waxaan ugu xumahay taloma hadalkaygaana yara fahmayn TV-ga inay iska gaabiyaan haddii aana dhinac ka qayliyo hibaaqay TV-gana dhinac ka qayliyo dabcan wixii oo dhan ba isku dhex cararayo isma maqlayno marka waxaan jecelahay bil inay qabtaan hallo assalaamu calaykum si fiican baan kuu maqlaya walaal adoo mahadsan TV-ga ma naga yara gaabin kartaa ma is dhegeysan karnaa waan gaabin karaaba bas gaabi xabiibtii soo dhow magacaagii xaggaad joogtid waxaan joogaa Nairobi waxaan ahay Koosraabi soo dhow macaanto product cusub baa laynoo keenay Australia laga keenay waxaan ku yiri kii wajiga qurxinaya kii toosinaya kii buurayay kii hawada ku gelinaya kii nuurka iyo calaan nuur kugu daray intaba waan haynaa marka dabcan wixii faahfaahina TV-ga RTN baad ku xidhnaanaysaa iyo page-ka England Show aan ku soo qori doono meesha exactly laga helayo iyo meesha uu yaalo marka waxaan weydiinaya walaashay macaan waxaan rabaa wajiga kareemka oo haaraha kii haaraha wuu yaalaa iyo intaba way yaalaan kareemada aad arkaysid aad iminka daawanaysid weeye marka addresska waxaan jecelahay inaad TV-ga RTN oo aad nagala socotid page-ka RTN TV sidoo kale TV-ga iyo aad halkaas aad numberka iyo addresska RTN TV baad ka helaysaa iyo page-ka England Show haddii lahay idmo dabcan daawadayaasha aad bay u xiiseynayaan waa inaan si degdeg ah aan halka iyagana aynu balan khadkan qabto assalaamu calaykum hello daawadayaashii iyagu xagga inaga daawanaya oo productigii la socda ayaa maxaa la yidhahdaa ii sheego productigii saa u daawanaya ayuunbay maxaa la yidhahdaa haddana balan eega qofkan hello assalaamu calaykum وعليكم السلام باسات England Show waa ku fiicanahay halkaad joogtid iyo magacaaga soo dhawow khadka si toos ah ugu jirtaa RTN baad naga daawanaysaa programkiina waa diyaar qaaliye ma sha Allah doo macaan Nairobi joobilna lidaha maxaa baalka wajiga qurxinaan macaane bilanay diyaar weeye wuu yaalaa addresska meesha laga helayo dabcan TV-ga RTN ku xidhno nagala soco iyo page-ka England Show halkaas aad naga helaysaa haddii ilaahay idmo insha Allah ay qaaliye هاي قالي أدقنا ما سنتهاي إن طبعا داودياش حق وحي وتشعليهن ماشي إن قلي لا إن نوصل ديارنا عاوة إن هلا والسلام عليكم هلا والسلام عليكم ولا سودو حبيبتي حق بنكون مقليا ولا واحد فردوس ولا فردوس هاي حقيت شو كمان ولا نكون بنشوفه ولا لا بس برنامج الله سعتها برودكتيك العصبة ديارها أنت صوت صوت شيرة عرك يدرك صام مرة قرحين الدمر كاسو ما ذا كيسيد هوا هم قالوا ولا معانا كريم كوحن دوني وجه دلالنا ولا لا ديار إن وفاهمتي يوميشات كهل يسدي iyo waxa soo dhan waxaad kala soconaysaa shaashada RTN TV dabcan iyo hadda page-ka RTN ku xidhan tahay page-ka English Show ku xidhan tahay ها لكن TV-ga soo daawan maysid halkaad iga daawanay imika hello ما مقلة والمعان كان وجهك دايم دير الدنيا معان TV-ga ma iska gaabin kartaa si aad ii dhageysato si fiican igu maqashid haye bal gaabi waayahay daawadayaasha hore waxaan ugu sheegay dabcan isma fahmi karno isma maqli karno idinkoo mahadsan gaabiya assalaamu calaykum soo dhawow si toosaad hawada ugu jirtaa walaalo waa fiicanay magacaagii halkaad joogtid Bomet County soo dhawow macaanto waa si toosaad noola socotaa soo maaha halkaad iga daawanaysaa TV-ga RTN soo igama daawanaysid babyga noo yara aamusi bas TV-ga RTN ku xidhno waxaad ka helaysaa addresska iyo meesha laga helaya iyo telefoonka iyo dukaanka iyo intaba waxaad naga
Facebook RTN Facebook English show ku qoran tahay iyo TV-ga RTN ayaad waxaad kala soconaysaa meeshaad ka helayso kala xidhiidhaysid dabcan daawadayaasha waxaan jecelahay inaan xasuusiyo meelaha ay naga helayaan RTN TV ayaad waxaad kala socon doontaan shaashadiisa meesha laga helayo addresskiisa iyo telefonkiisa sidoo kale Facebook RTN hadii aadan hore saaxiib ula ahayna iminka la garay RTN TV Somali sidoo kale English show page-ka ku qoran isagana si aad macluumaadka ula socotid isagana la garay sidoo kale Instagram-ka English show ku qoran tahay waa inaad iyagana nagala soo xidha si aad u heshaan macluumaadka oo dheeri inta kale TV-ga badaawanaysan hello assalamu alaykum daawadayaasha aad waxaan uga xumahay caawa inaan hello assalamu alaykum waa shira ku soo noqotay fiiri ya deema sidii kasaan sawaca misbalmaawe ma dhegaysanaysaa ma maqlaysaa si fiican ma maqlaysaa abshira waxaad samaysaa TV-ga RTN la soco si aad numberka ku qoran productiga aad u heshid page-ka RTN-na like saar haddaanan kuu saarnayn page-ka English show-na like saar si aad u heshid dukaanka meeshuu ku yaalo iyo meeshuu ku qoran yahay haddii lahayd mo aniga ii kaale anaa haya diyaar iyo nus waayahay daawadayaasha waxaan caawa aad uga raaligelinaya anigoo aan adresskii halkan u soo dhigin hello assalamu alaykum hello daawadayaasha dee waana productigii markay arkeen baabay dawqa caadiya noqdeen macnaha TV-ga inay naga gaabeen Soomaa hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum idula madina qaasaan jir salaamaya labadiinaba soo dhaw xabiibti xageed naga soo garaacay walaal waxaan ka soo garaacay Nairobi waxaan doonayaa walaal inaan ogaado ma jirtaa habeenay bandhig samaynayso ama ay dadka dee iskugu wada iman karaan number aan ka heli karno xibaaqina su'aasha weydiiyo because dadkii oo dhan waxaan u jeedaa dadkii iga horreeyay oo dhan way wada rabaan marka hibaaq ma laga yaabaa inay noo samayso carwo ama bandhig aanu habeenkaan nimaadno oo meesha ka wada iibsan karno okay horta wixii faahfaahin dheeraada meesha hibaaq lagala xiriirayo addresskeeda waxaad ka helaysaa TV-ga RTN ayaa shaashada RTN baad ku xidhnaanaysaa sidoo kale page-ka aan ku leenahay Facebook RTN Somali TV iyo sidoo kale page-ka English show iyo Instagram-ka English show ku qoran tahay iyo shaashada RTN ayaa toos nagala socon kartaan oo ka helaysan laakiin bandhig inay qabanayso hibaaqaye bandhig waan ku tala jiraa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waan kala qaadayaa mid waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan kala wada daayo mid kala ka horeysa hana iga raali ahaadaan maadaama ay raahday alaabtan Soomaali kaliya ma aha marka insha Allah ka markaan aan sameeyo mid weyn ayaan Soomaalida u sameeynayaa haduu Ilaahay nafta marka ka horeeyad sameeyay cadaanka Afrikaanka iyo marka anaga ma noo horeysiisin anaga Soomaaliya celebrate hada noo ahayd waxba kama qabo laakiin hawsha Soomaaliya maxas lahayd mid weyn aad bay mahadsan tahay dabcan xilliga dambe ee ay qaban doonto bandhiga anagoo baad nagala socon kartaan wixii macluumaada ee TV-ga kala socon kartaan RTN hello assalamu alaykum hello ha si fiican baan ku maqlay walaal RTN ha RTN baad ku jirtaa soo dhawo والله والله ما إجلس شو بريان دمبي وحكارة جنيني إلى يرجع فان أنت لو كنت برياني وأنا كسر جواز بير حاول بالعنت كشلون تاي ما ذاك برودك تيجي كريم كأدم السكر حنت الدمركا مركوات هاي عضو ما صنتاي وراكي عاو بالعنت وحلو استعمالها دمركا ما شاء الله هلا قفت حيقة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام سودو ولالا وعندها حبيبتي فلاني ومنطقة صلاوتي هي منطقي هاي بري أي روح روحته وأنا هاي قطعنا بالله وحارة ولا بشيء روا ما حد ربطها معانا متك هارها متك حارة وجري سو عيرنا ديار يا نص لبضع سبوا ديار لوكا كوسي دونكتي فيسبوك مسنجر يا فيرسو لا adna way hayso diyaar garow productiga anonsiyan ku keenaya insha Allah ila soco TV-ga RTN la soco budgetkan ku leenahay la soco ha
dadka waxaan carafka aad u jecel cadaraha jirka iyo cadaraha bofidka inay noogu soo dartaan jeclaan lahaa haye إن شاء الله وصوّد أبيتي قار كلا بدن بيصوّد إن شاء الله وحن نشعل هاي بل إن داودياش أخذت كتليفون قصاص إسكوتشي ريا لكن عاد وحن نقرها للجلين إن ما دابا إن نعاو أدريس كإنه قصنا عن هالكنو كانين لكن بريسات دم إن شاء الله وحن نرص عندهم تان تيفي عارتي إن شاشة دي سيد واحد كرص عندهم تان دي لهي دمو إن adresska dukaanka meesha uu yaalo hadii online lagu gadayo inta halkaas aad dabcan hibaaqad kala socon doontaan hadii bandhig ay sameeynayso RTN baad nagala socon doontaan insha Allah qofkii chance waaya inuu markaas RTN shaashadeeda daawado shaqooyin waxa ku mashquulsan waxaad aad iyagana like saaraysaan page-ka aan ku leenahay bartade lagu wada isticmaalay baraha bulshada Facebook RTN Somali RTN TV Somali TV iyo sidoo kale blogga Eagle Show iyo Instagram-ka dabcan Eagle Show ayaad nagala xiriiri kartaan inta kale waxa baad helaysaan TV-ga shaashada lambarka meel walba Soomaali hadda hibaaqay iyo dad mi soo dhaweynaya aad oo ni sharxay walibana Somali RTN TV bay dabcan kala xiriiri doonaan oo ka arki doonaan iminkana online baynu ka nahay meel walba waxaan jecelahay lambar fog baa soo garaacay hello assalamu alaykum hello ha عليكم السلام واتهي بلان كنا صنع بردك تيكس هاي نوضن بي وحن شعلها بل حصوصي أبوان يوسف آذن الله عليه يهيسيه وسميه إنان سوقبتو هيس أي مرهو رقادة شرتي فنانة دينا بنتي عمر قعال إمن كان وحسوق عطي فنانة نستيحة إندو marka waa jacayl loo socday anoo bari xaawo jooga markuu bari iiga yeeray haddana markaan bari tagay buu haddana badi boy ka raacay waxaan jecelahay farsamada inaan dhado heestaas ay imika soo cusboonaysay nasteexa indho horena ay u qaaday binti Umar Gacal daawasho next barta ayarkan ka eegtay wiilkii shaygu baaqay inakii caashaqan baray anigu baaqban ku raacay barta ayarkan ka eegtay wiilkii shaygu baaqay inakii caashaqan baray anigu baaqban ku raacay anigoo madaxa wajooga muxuu bariga yaray kolkaan baasaasa gaaray muxuu burcayga heesay anigoo madaxa wajooga muxuu bariga yaray kolkaan baasaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo meelo sii maraya dubada way ka qaatay inuu been ila jilayay adaa boqorow ogaye ibixi iga badbaadi anoo meelo sii maraya dubada way ka qaatay inuu been ila jilayay adaa boqorow ogaye ibixi iga badbaadi haddaan bogsadan karaysto sidaan uga boode cahasha jacaylba haddaanu booyo haddan nin damba u barorto haddana baxsanow irahdo aniga barwaaqamahayga raacdo
adunba aan intaanu qaatay jacaylkiiba isamadka waa tahay aan xusuustii halka aabbo kaga soo noqono dabcan caawa productigan aan jecelahay daawadayaasha inay ka faa'iidaystaan waxaan rabaa bal inaan hal mar ku noqono maxaa tiri baan aan ku jirin oo adiga iglanay dawooyin badan oo hadda dumarka ay isticmaalaan waxa ku jira wax mercury la yiraahdo waana waxa kansarka keena waxa wadna xanuunka beer xanuunka kaliyaha joojiya weeyaan laakiin keena kuma jiro waa laga ilaaliyay maadaama Australia aan deganahay Australia oo ay ku jirto wadamada ugu horumarsan nagama ogolaateen in alaabtan available ay noqoto marka aad ba alaabtan loogu dadaalay in waxaaso marka wajiga misaadad bu qolofka dawooyinka qaar ka saaraan qolof ma ka saarayaan qolofta ka dhacaysa waa skinkaagi oo damage baad isku sii geysanaysaa wuxuu ku laakiin kuma saarayo ku caawinaya inta tabarta ah ma ku jiro mercury ma ku jiro wax suna kuma jiraan alcohol kuma jiro oo qofkii xataa dad waxa jira kareemay marsanayaan waxba ka buuxa ur ay dhibsanayaan marka taas naftirkeeda khatar ah marka udugida waa ka ilaalinay ma carfayso caraf dhan male haday carfayso waa waliye bal waxaan jecelahay inaan chance ka siiyo assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي حبيبتي سودو هالكات شوكتي دي مجا عاجا يعني طبعا برودكتي كنا والله صعطة سماها. وعندوها وعن بدنا وحن شوفا نيروبي. هاي حافظ دي ولا على. وحن ربا كريم كأوحيسي مدو هنا. هارها معناها كهارا قوينية. بس ديار ويا حبيبتي ان ادريسك ان شاء الله واد naga helaysaa TV-ga arteen ku xidhnow saad nala socotida oo dabcan aad halka uga heshin macluumaadka Instagram leedahay Instagram-ka waxaad kala xiriiri kartaa hadda oo si Instagram-ka ay ku qoran tahay England Show iyo sidoo kale page-ka TV-ga RTN Somali RTN Somali TV iyo England Show ee page-ka ku qoran tahay ayaa si toos ah nogala xiriiri kartaa telefoonka iyo shaashada iyo waxaabana waxaad ka heli doontaa insha Allah TV-ga RTN طبعا dadkii aad bay u raadinayaan waa inaan si degdeg ah aan ugu sameeyno oo markaa shaashada ugu qorno hello assalamu alaykum هلا والسلام عليكم ان تليفونadii baa intay isjiireen oo too much noqdeen oo caawdadka intaan ku dhageysanayeen raalaha naga ahaadeen inta khadku soo gal wayna aad dabcan waan ka raaligelin assalamu alaykum wa alaykum salaam ibn saalax soo xabiibti halkaad joogtay magacaaga waxaan joogaa Nairobi xaafadda Islii marka waxaan rabaa kan wajiga qurxiye iyo kan wajiga buuxda ka wajiga qurxiye iyo كان عارها بيو labadaba waa diyaar dabcan arkeeso kuma xidhnid ya bagaada youtube kana waa ku xiranay ku soo qoraysaa bas waxa dhan halkaas waxaad ka helaysaa address-ko halka nagala soco insha Allah qiimihii iyo waxaana adigu si barayfaday uga sheekaysan doonaa dabcan de daawadayaasha waxay leeyihiin hablihii waxa naga maqnaa baad noo keentay hello assalamu alaykum وعليكم السلام si fiican baan ku maqlayaa walaal magacaaga halkan ka soo garaacaysid qofkaasna dabcan productigi dadkii markay arkeen ayayba adduunka saliidii biiskooda yaaciyeen hello assalamu alaykum hello waan ku maqlayaa walaal soo dhow magacaaga xagaad joogtid macaane waa mahadsan abaa igla waxa way nimco ka soo wacaysan Nairobi nimco soo dhow wad la socotaa Soomaha barnaamijka macaani wajiga ayaa tush طبعا انت خدك كوي لكن وجهك دلدلول يا حبيبي كلها امرينيا waxa mid caawinaya jira daldaloolka waxa keenay waa nabra ilahaan jirtay ama damage hore u soo gaaray ayaa wajiga daldaloolka marka daawadii wixii oo dhan damage-dii buu kala safeynaya oo hello assalamu alaykum hello طبعا خدكان ugu go'ay bal daawadayaasha wiiga dambe waadigii resultigiisa waxa laga arkaa si degdeg ah dadka marsanaya ee markaa suuqa markay igu arkaan de anigu bay eegayaan moogtay waxa oran kale igan dawada adigu ma marsane maxaa kugu dhacay marka waxaan jecelahay anigana dadka allergiga iyo wax wajiga kule baan ho marka ismariyo de waa ana u si bilaabay hadhow daawadayaashana markay arkaan anigoo bay soo raadinayaan ilaa soo arkaya ilaahi baaqay adiga moogtay wax laga yaabaa inaan dibad anigay wadada igu qaqabta maya ilaa ay qurux badan tahay taana mid ka sii badan waa heli doontaa insha Allah waa ugu sidaraya kulay kalsooni baa ku qabaa waa tahay assalamu alaykum hello walaal soo dhawow
bilow maxaan rabaa daawadan. Salaamu calaykum. calaykum salaam. daawadan maxaan rabaa markii la marsado madowga yar ka baxayo. saasa yaroy walaala meeqa la gadaa. diyaar weeye xabiibtii wixii barayfada weeyaan oo qiimaha iyo waxaas oo soo wada xidhiidhaynaaye annaga uu nala soco bayjajkayga iyo TV-ga RTN la soco address-kana halkaas uu kala soco may maqlaysaa xabiibtii hello inantaasna telefoonka ka go-ay dabcan aad baan uga xumahay daawadayaasha waxaan jecelahay bal qaybihii dambe ee programka daawadayaasha ku xidhan RTN iyo dabcan productiga maxaad leedahay waxaan leeyahay waad ku farxi doontaan inaad ku farxdaan mooyaane disappointed kama noqon doontaan biglanay bishii ugu horreysay alaabteena aan soo saarnay 5,000 oo xabaa la iibsaday waayahay haddii aad intaad noo keentid oo aan mar ku yaacan oo iibsano oo aantaan isku qurxino hadhowtu uu naga go xageen ka helinaa ma go-ay waxaad helaysaa waaba for good miya waa for good weeyaan sanad walba helinaa sanad iyo bil kastaba iyo week kastaba helaysaa wax dhamaanaya ma insha Allah dabcan aad buu mahadsan yihiin qaybta farsamada iyagana sa quruxda badan ee maslaxiyo Cabdiraxmaan oo iyagana u hagar baxayo magacii iyo wixii oo dhan shaashadaha waxaan ku dhisaas daawadayaasha waxaan jecelahay inaan mar kale xasuusiyo dabcan caawa halkan waxaan aad uga raali gelinaynaa oo aad uga xunahay inaan address-ka ay ka heli lahaayeen oo inaga habsaamay oo product si degdeg noogu yimaado si degdeg u soo qaadnay laakiin maalmaha soo socda dabcan waxaad naga helaysaan address-kii iyo meesha aad nagala xiriirisaan iyo telefoonadii ayaad naga helaysaan inta ku xidhan RTN dabcan shaashada RTN ayay si toos ah uga helaysaa iyo ay ku arki doonaan inta aan TV-yada inta badan aad u isticmaalin ee ka mashquulsan TV-yadana bogaga aan ku leenahay YouTube-ka RTN Somali TV sidoo kale page-ka RTN Somali TV isagana oo ah page-ka Facebook-ka RTN page-ka program-ka oo isaguna ah page-ka England Show ku qoran tahay iyo sidoo kale Instagram-ka isagana uu barnaamijku leeyahay iyo TV-gu leeyahay Instagram-ka oo isaguna England Show ay ku qoran tahay oo yaani programkan de social media iyo TV-giisa intaba ayaad nagala xiriiri doontaan waxaan jecelahay inaad caawa naga raalin gelinaynaa maadaama aan soo qaadin hibaaqay adigana sidoo kale waxaan kugu mahadcelinayaa walaal sida sharafta quruxda badan dabcan aad daawadayaashaada iyo daawadayaasha RTN iyo dadkaaga shacabkaaga uga naxday ee aad istiri ka qurxi hablaha wajiga aad wallahi aad ugu faraxsanahay inaad opportunity-gan oo iglanayna siisay maadaama ay dad badan kugu xiran yihiin RTN dad Soomaalida boqolkiiba 80 ay ku xiran yihiin aad waxaan ugu faraxsanaynaa maanta caawin la joogo oo adigii farsamo yaqaanada iyo dhamaan RTN ayaan kala qaadin aad baan ugu mahadcelinahay fursada qaaliga aad siiseen waa tahay productigana dabcan RTN hadaad ka aragteen oo dabcan RTN aragteen isaguna wuxuu noqon doonaa isagana qoys iyo family kamid oo RTN oo dabcan halkan baad nagala soo xiriiri doontaan wixii iiba iyo wixii barayfada iyo wixii online marka aan address-ka soo qorno ayaad si barayfada uga xiriiri doontaan dabcan intaasan jecelahay inaan programka ku soo gabagabeeyo programka xiga intaynu kulmayno waxaan u mahadcelinayaa walaashay Hibaaq Yuusuf Aadan Allaale oo dabcan iyo xasuustii aabo aan caawa heesii halka soo dhignay wixii dambe ee productan ku saabsan iyo hadaad qabanaysid u qabanaysid xalfadii waxaana RTN bad kala socon doontaan programka xiga intaynu kulmayno anagoo isku duuban dabcan waxaan leenahay farsamadii baa markii tagaysaa u kala hageysay marna ku dhufanaysay magaca marna productiga marna wajiga quruxda badan anigu wali ma soo marsan ma garanaysaa mid kale aniga inta badan dadku way iga daaleen way iga xiiqeen waxay leeyihiin nabal hibaaq noogu dhiib way aad baan ugu faraxsanahay caawina halkan soo fariistay wax badan baan fiirsaday qof halkan fadhiya aan fiirsanay caawadiga bedelay waa tahay waxaan u mahadcelinayaa Maslax Abubakar Xaaji oo dabcan qaybta technician inoo fadhiyay kamaradaha quruxda badan Cabdiraxmaan iyo isagana agaasinkii dhamaa ee TV-ga madax ilaa minjo oo isaguna qayb weyn ka qaatay Maxamed Khadar oo in badan oo wax xumaadeen soo galay oo soo socday si socday kala qabanay waxaan leeyahay anagoo isku duban bahda RTN programka xigeenteena kulmayna anagoo isku duban nabadgelyo